aqoonta adduunka taalle bini aadamku barta waa 3 nooc bas aqoonta adduunka taalla ee bini aadamku barta waa 3 nooc waxiga la soo dejiyay ka waramayno waxaynu ka waramaynaa aqoonta basharku uu haysto waa 3 qaybood mid afraad ma leh bay yiraahdaan qayb waxay ku tilmaamaan inay tahay al-ulum as-siyadiyya waa aqoomaha dunida lagu hogaamiyo taa cidna la isma baro cidina isma siiso waana basaasida dunida ugu tirada badan leh meesha ay ka dhacdo basaas hadaad maqasho dawladdan baa basaasinteedii waxa keentay waa basaasintu maxay basaasaan basaasintu amnigan caadiga ah ayaa wadanka soo galay ayaa ka baxaya maaha basaasnimada dunida ugu weyn waxay ka dhacdaa cilmiga waxaana ka dhacdaa culumta siyaadiga ah aqoonta hogaaminta aqoontan inuu sheegayna waa maxay midalan waa culumta nuclear powerka midalan waa culumta fadaaga ku saabsan midalan waa culumta gantaalaha dhaadheer iyo wixii la halmaala midalan waa culumta hub oo dhan ku saabsan midalan waa culumta tiknoolajiyada gaarka ku saabsan wadanna wadan ma siiyo cidina cid ma siiso waa la kala xadaa'un tuugay ku socotaa walidaalka baa imka waxa maqlaysaan China oo reer galbeedku leeyihiin waa la cuna qabataynaya 20 shirkadood oo China waayo tuugadii bay badiyeen bay leeyihiin waxyagiiba intay xadeen ayay China dib uga soo saareen waa aqoonta la isku dilo xataa haddaad adigu istiraahdo waad samaysan kartaa waa lagugu dilaya laguma ogola inaad soo gaadho waxaad maqli wadan baa gantaale cirka loo diro samaysanayo waa loo diiday waa ka mamnuuc dee nuclear iyo isaga baabka iska daa waa aqoonta lacagta dhasha مثلا شركات كواوين الدنيا جرا شركات هنا سرتها ما بحسوا مرسيدس وحو مرسيدس كويا هي إنه قرصونين يشرتان الدنيا كلا لا أوجين هاي هدي لا أوجاد ده الدنيا ده وده مرسيدس بين الله فولفو وحي فولفو كتاي إنه قرصون بشرتان الدنيا ده لا أقوانين هدي أنت على لا قرطو ده الدنيا ده وده فولفو قال عيد ولا ما فولفو وصار لهاي إذن أقوانتا وحلا ده وأقوان سيادي ولا اسمه سيو لا اسمه نبره dunidu inta badanna way kala xadaa